السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى خلقك wuxuu ku beeray inay cid kale ku daydaan oo ay kaga daydaan khayr iyo wanaag ama shar iyo xumaan. wuxuu ilaahay qofka bani aadamka ka dhigay mid ay raad kaga tagaan hadallada, ficilada iyo dhaqamada dadka kale, oo ay wanaag ku raadeeyaan ama xumaan ay ku raadeeyaan. taasina waxay muujinaysaa ahamiyatu alqudwa waluswa fi xayaati alinsaan, qiimaha iyo darajada ay leedahay in cid lagu daydaa iyo raadka ay ku yeelato qofka bani aadamka noloshiisa. alqudwatu waa min wasaa'il alislaaxi aw alfasaad. ku dayashada qofku cid kale uu ku dayanaya tusaale iyo hormood uu ka dhiganayaa oo waddo loo maro hagaajinta nafta adduun iyo aakhiraba ama xumaynteeda iyo baabiinteeda. ayuha almuslimuuna cibaad allah, arrintaasi awgeed islaamku wuxuu ammaanay alqudwa alxasana, qofku inuu noqdo tusaale fiican, inuu noqdo mid ku hadla wax fiican oo dadka kale ay kaga daydaan, mid sameeya oo dhaqan ka dhigta wax wanaagsan oo dadka kale hormoodu ugu noqdo. wuxuu dhiirigeliyey dadka wanaagsan wanaagga in lagaga daydo oo waddada ay mareen la maro. reer banu israa'iil ilaahay maruu ka hadlayay wuxuu ihi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu. nicmooyinka ilaahay uu siiyey bay ka mid ahayd. markii iimaan laga helay ee wanaaggiina ay ku sabreen, waxaanu ugu nicmaynay dad wanaagsan oo hogaamiyeyaal khayr ah oo wanaagga lagaga daydo. wa qaala tacaala can nabiyina alkariim laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana kaana daaciya biaqwaalihi wa afcaalihi wa akhlaaqihi wa suluukiyaatih. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka wanaagga ugu baaqay hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo dhaqankiisa iyo aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan. wuxuu rasuulu ku raadeeyey dadka ficiladii wanaagsanaa ee uu lahaa. rasuulka ilaahay wuxuu idin yahay tusaale wanaagsan oo wanaag oo dhan aad kaga dayataan. qaala tacaala can nabiy llaahi ibraahim, ilahay wuxuu ihi isagoo nebi ibraahim ka hadlaaya qad kaanat lakum uswatun xasanat fi ibraahiima waladiina macah. sida tawxiidka uu xaqiijiyey nabiy llaahi ibraahim iyo dadkii wanaagga ku raacay, iyo sida ay uga beri noqdeen ay isaga fogeeyeen shirkiga iyo dadkiisaba, tusaale fiican baa nebi ibraahim iyo kuwaa raacayba ay idinku yihiin. waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay nebiyada guud ahaan inay tusaale fiican u yihiin qofkii doonaya waddo saxa inuu maro oo adduuniya aakhiraba uu ku liibaano. ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih. kuwaa la soo sheegay 18 nebi buu ilaahay ku sheegay fii suurati alancaam. intaa dabadeed buu ilaahay yidhi kuwaasi waa kuwii ilaahay uu hanuuniyey ee waddada saxdaa ee lagu liibaanaya adduuniya aakhiraba, ee sharafta iyo karaamada lagu gaadhay iyo maritaankeeda ilaahay waafajiyey. adiguna ku daya nebi maxamedow iyo qof kasta oo muslimow oo iyaga tusaale ka dhigo. dhinac kale haddaynu ka eegno, ilaahay wuxuu dhaleeceeyey dadka tusaalayaal xunu ah oo ku hadla ama sameeya ama dhaqan ka dhigta wax xunoo dadku ay kaga daydaan oo qudwa fi shar walfasaad ah. waqaala can aali fircawn, ilaahay kuwii fircoon waddadiisa maray markuu ka warramaya wuxuu yidhi wajacalnaahum a'immata yadcuuna ila annaar wa yowma alqiyaamati laa yunsaruun. waxaanu ka dhignay
kuwa lagu daydo laakiin waxa lagaga dayanaya wax wanaagsan maaha waxun baa lagaga dayday oo wadada naarta loo maro waxay tusaale iyo hormood ugu noqdeen kuwii ku dayday ee wadadoodaasi ka daba maray wax naarta lagu gala buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qala ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihi muqtadun qolo kasto nabi aan u diray kuwa kibrey madaxtinimo ay kibrisay ama maal iyo dhaqaale uu kibriyay xaq intay aqbali waayeen ayaa waxay tusaaliye hormood ka dhigteen kuwa iyaga ka horeeyay laakiin shar iyo xumaan uga horeeyay aabbayaashayo oo wadada ku taagan ayaanu soo gaadhnay bay yiraahdeen iyaga ayuun baanu ku dayanaynaa ilaahay arinta waa ku dhaleeceeyay taasina maxay tilmaamaysaa dadka ka horeeyay xataa waalidka aabbaha iyo hooyadana ku dhaho wixii khalad iyo xumaan ay lahaayeen inaanay tusaale kuugu noqon iyo hormood oo aanad kaga dayan wixii wanaagsanuun inaad kaga dayato taas waxay noo muujinaysaa yaa cibaadallah ahamiyada iyo qiimaha ay leedahay alqudwatu fi xayaati alinsaan qofku inuu tusaale fiican noqdo cid tusaale fiican ah khayrka iyo wanaagana hormood ku ah inuu tusaale ka dhigto oo ku daydo wanaaggu inuu faafo ama xumaantu inay faafto waxaad uga qayb qaata bal qaybta u weyn ku leh dadka wanaagga tusaalaha ku ah iyo hormoodka ee lagaga dayday iyo kuwa sharka iyo fasaadka dadka tusaale ugu noqday ee lagaga dayday qofka wanaag lagaga daydaa ajar weyn buu ku helayaa wanaagga uu dadka tusaalaha ugu noqday qofka xumaan lagaga daydana dembi weyn baa dhabarka loo saaraya قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء قفك وناك أرين وناك سنتصال ددك أقول نغضة وأيك قد ديدان عملك وناك سنة وسميات شركي سلي كوي كقد ديدي أشركي كهلين مدلقنا وكهلية يضر يقنا وحبان لقى نقصامين عكسنا واسدا سوكله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء قفك وضحن شديه ددك تصاله ونغضة أي كقد ديدان عمل كاحنا والسمية دنبقي سولة يدبرك الله صاري يلقوا على السنة يعد كستوى كقد ديتي دنبقي لوغا قري حمان تامد لك ayaa isagana dhabarka loo saaraya hatta isagu dambigi marka aan sameeynahayn ayaa kuwiisa kaga dayday maadaama aanu toobad keenin toobadiisana aanu iclaamin ayaa dambigoodii loo qoraya mid kiyaga loo qoray mid leeg baa isagana loo qoraya wuxuu inoo sheegay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam sa Bukhari iyo Muslim baa wariyay min xadiis Abdullah ibn Mas'ud labadii inaan ee Nabi Aadam uu dhalay midkood uu dilay ka kale kii wax dilay naf kasta oo la dilo ka dilay dambiga looga qoray mid leeg isagana in looga qorayo ilaa qiyaamaha laga gaarayo adduunyada laga guuraayo wuxuu rasuulku la tuqtalu nafsun dhulma illa kana ala ibn adam al-awwal kifl min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl naf kasta oo dulmi lagu dilo ina aadankii hore ee walaalkii dilay dambigaasi waxba ku yeelanaya imise qof baa maalinta laga soo bilaabay adduunyada dusheeda lagu dilay oo dulmi loo dilay qof kasta oo adduunyada dusheeda dulmi loogu dilo ilaa uu qiyaamuhu dhacayo in aadamkii hore walaalkii dilay dilkaasi dambi baa looga qoraya sababtana rasuulku waa cadeeyay wuxuu yiri li'annahu awwal man sanna al-qatl way wuxuu qofkii u horeeyay jideeyay ee dadka tusaale ugu noqday ee ay kaga daydeen dilka ilaahay bayna subhanahu wa ta'ala weydiisanayna ay yaj'alana a'immatan fil khayr wa la yaj'alana a'immatan fil sharr wal fasad aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، waxyaabaha maanta aada looga murugoodo waxaa ka mid ah azmatu lqudwa fi xayaati lmuslimiin, dhibaatada ka taagan ku dayashada iyo cid tusaale in laga dhigto ee ay ku yeelatay nolosha dadka muslimiinta ah. in badanoo muslimiinta ka midii waxay ku dayanayaan fii man laa khayra fi liqtidaa'i bihim, kuwa ku dayashadoodu khayr aanay u lahayn oo adduunyadooda waxtar aanay kusoo kordhinahayn, aakhiradoodana dhibaato mooyaane dheef aanay ku darahayn. waxay ku daydaan in badanoo muslimiinta maanta ka midii saqatatu nnaas wa safalatuhum, dadka kuwa u liita u hooseeya ee diin iyo akhlaaq iyo dhaqan lagaga dayda aan lahayn, isla markaa nafci adduunyo, aqoon adduunyo ama waxtar adduunyo lagaga daydana aan lahayn. waxay kaga daydaana oo waxaan macno lahayn. tusaalayaasheeduna nolosha muslimiinta aad iyo aad bay ugu badan yihiin. in badanoo muslimiinta ka mid ah waxaa ka lumay almanhaju lwaajib fi amri lqudwati waluswa, waddada ay tahay qofka muslimkaa inuu ka maro qadiyadii arrinta ku saabsan cidda lagu dayanayo tusaale laga dhiganayo. waxay ku dayanayaan sidaasi aanu sheegnay kuwa aada u liito diintooda iyo adduunyadooduba in ay ku dhinmaan ay ku nuqsaamaan mooyaane aanay ku kordhahayn oonay ku siyaadahayn. in badanoo muslimiinta ka midii waa xayaara fii amri lqudwa, waa kuwa asqoobay marka laga warramayo qadiyadda cidda tusaale laga dhiganayo cidda lagu dayanayo, oo maba yaqaanaan cidda mudan in lagu daydo oo tusaale laga dhigto. waxaa mudan in lagu daydo alambiyaa warusul waman salaka subulahum, nebiyada iyo rususha ilaahay u soo diray iyo cid kastoo waddadooda martay. wax dhibi kuma jiro qofku gaalba ha noqdee in lagaga daydo wax wanaagsan, gaar ahaan arrimaha adduunyada ee waxtar kale. laakiin waynu aragnaa muslimiintii waxay kaga dayanayaan, gaar ahaan dhalinyartu, waxyaabaha liitee macnaha aan lahayn. wixii wanaagsanaayo xataa gaaladu ay hayeen ama ay lahaayeen ee aqoon adduunye ahaa, in badan oo ka mida muslimiintu kaga dayan maayaan. ayuha almuslimuuna cibaad allah, qof walo muslima waxaa la gudboon inuu istaago fii maqaami lqudwa, oo isagu uu iska dhigo mid mudan in wanaagga lagaga daydo, oo uu noqdo qudwata khayrin wa salaax. qof kasta oo muslimi, qof kasta oo muslim oo hadda taagan fii maxalli lqudwa, waalidnimo, culimanimo, madaxtinimo, macallinnimo, maalqabannimo iyo wixii lamidii ay gaadhsiiyeen martabada dadku inay indhahooda ku hayaan oo isagu wuxuu samaynaya ay eeganayaan. waxaa la gudboon inuu ogaado mas-uuliyadda iyo waajibka ka saaran inuu tusaale fiican u noqdo dadka muslimiinta. waad ogtihiin dumarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam, ilaahay maruu kaga warramayay fii suurati alaxzaab wuxuu sheegay wanaagga ay sameeyeen ajarkiisa in loo labanlaabayo ka dadka la siiye mid ka badan la siinayo. waayo fii maxalli lqudway ahaayeen, tusaalay dadka kale u ahaayeen oo gurigii nebigay joogeen. xumaanta ay sameeyaanna ciqaabka dadka kale lagu ciqaabo mid ka badan in iyaga lagu ciqaabayo, waayo dadka ishooda ayaa hayso waa lagu dayanaya. waad ogtihiin ninka boqorkee beenaalaha ah iyo odayga weyne sinaysta, rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ku daray kuwa yowma alqiyaama ilaahay aanu eegahayn, oonu u naxariisanahayn, oo aanu u dembi dhaaf ahayn, oo cadaabada la kulmi doona. waayo waa fii maxalli lqudwa. waxaan leenahay madaxdu dadka tusaale fiican ha u noqdaan, oo runta tusaale fiican ha ugu noqdaan, oo khayrka iyo wanaagga iyo cibaadada tusaale fiican ha ugu noqdaan, oo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan tusaale fiican ha ugu noqdaan. madax dhaqameedka salaadiinta, ugaasyada iyo boqorada
iyo cuqaashu tusaale fiican dadka ha u noqdaan ummaddan ay u taliyaan way eeganayaan oo way ku dayanayaan wanaag ay kaga daydaan iyagu ha ku sifoobaan dhakhaatiirtu dadka tusaale fiican ha u noqdaan culimadu tusaale fiican dadka ha u noqdaan macallimiintu tusaale fiican ardaydooda ha u noqdaan waalidku ubadkiisa iyo usradiisa iyo qoyskiisa tusaale fiican ha u noqdo qof walo ummaddan ka midii ha isdhigo fii maxalli lmas-uuliya inuu mas-uul yahay oo mas-uuliyadii ay saaran tahay naftiisa ha dareensiiyo oo wax kastoo xun samayntiisa naftiisa ha uga turo ummaddiisana ha uga turo oo tusaale fiican yaanu ugu noqonin maanta innaga mashaakilkeena haysta waxaa ka mid a dadkii maxallulqudwa ahaa in badan oo ka midii mas-uuliyadooda way dayaceen waalidkii isagaa sigaarka cabaya isagaa qayiilaya isagaa caytamaya isagaa xumaanta samaynaya ubadkiisii markay sameeyaanna uu la yaabaya ilmihii yaraa ee haashka qaatay la yihi waa isha tuur soo ma odhan waa ishtii aabbo way aabbihii oo sita ayuunbu arkay qaadku waa la mid caydu waa la mid macallinkii waxaa laga yaabaa inuu ardaydii caayo ama hadalla xunu ku idhaado ama waxyaabo xun hortooda inuu ku sameeyo way kaga dayanayaan oo tusaale ugu yahay madax dhaqameedkii iyo dhakhaatiirtii baa qayilaya dhakhaatiirtii ahayd dadka inay qaadka ka waaniyaan oo dhibkiisa ay u sheegaan ayaa iyagu qayilaya oo mafrashyo gaara leh soo ummaddu ku dayan mayso madax dhaqameedkii baa qayilaya weliba markaa beledkan si gaara loo eego niman odayaalo madax dhaqameeda ayaa gobol ka mida gobollada soomaaliya ka yimi halkan ay yimaadeen si ay ula kulmaan kuwa halkan jooga qolo kiilo qaadi mid walba dhinac yaallo ayay guri ugu galeen cabbaar markay aamusnaayeen bay yidhaahdeen war salaadiintii maye markaasaa la yidhi waa kuwan iyagu waxay u haysteen inay yihiin mooryaan ama askar iyo wax la mid oo madax dhaqameedka staff iyo bodyguard iyo waxa u ah ilaa halkay ka yimaadeen inuu qof sharaftiisa dhowranayo ama qayilo oo qaad ma cuno wasiirkii baa qayilaya oo agaasimihii baa qayilaya oo waxyaabo aan wanaagsanayn samaynaya war ummadda dadka hormoodka iyo tusaalaha u ah ay eeganayaan ay higsanayaan haddii ay tusaale xun u noqdaan ummaddaasi way baaba'aysaa hadday tusaale wanaagsan u noqdaanna ummaddaasi way aflaxaysaa way guulaysanaysaa bal qof walowba waxaad isku daydaa inaad naftaada hagaajiso si aad ummadda inta kalena tusaale aad ugu noqoto allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annar اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد